وعشر كانت طبعات ام اس اكسل. عشر كانوا وحuu ku saabsan yahay conditional formatting. conditional formatting waxay wax badan ka bedeshaa muuqaalka markaa dhaatada ay yeelan doonto. saa ujeedada meesha dhaataan oo diyaarsan oo isku wada mid. so conditional formatting qaabka sida loo sameeyo iyo qaabka loo isticmaalo inta isla aragno. markooda home ku dhufanaysaa haddii aad joogtid homena conditional formatting imaanaysa conditional formatting. then qaybahan dhan arki doonaa insha allah. waxaan ku bilaabaynaa meeshaan ay qoran tahay highlight cell rules. garetidana ka bilaabaynaa. garetida marka waxaa loo isticmaalaa koodii waxaa samaynaysaa qaybta rabto dooranaysa. tusaalahaan qaybtana hadda aan rabnaa inaan ku sameyno conditional formatting qaybta waan dooranay. then conditional formatting kadib kasii dooro garetidan. so halkaa waxaa qori doontaa numberka aad rabto. haddii hadda aan qoro konton camal ayaan ku bedeli doonaa nambarada konton ka weyn garetidan 50. okay aan leeyahay kulli hadda nambarada meesha ku jira konton ay ka wada yihiin. saa ujeedid noocaasoo loo sameeyaa. hadda waxaa kala hubdaynaha aan doorano mar kale kadib aan doorano conditional formatting then aan dhahno kadib waxaan dhihi doonaa nambarada ka weyn 80 kadib okay aan leeyahay. sidaa ujeedid nambarada waxaa la ii highlight gareey 80 ka weyn. marka dhaagtadaada noocan ayuu markaas u bedelaya conditional formatting. okay taa waa isla aragnay garetidan waa isla aragnay. waxaa ku xigo conditional formatting nofor less than. haddii aad rabtid marka tusaale ahaan like haddii aan dhaho 90 wax ka yar 90 wax ka yar okay aan leeyahay. saa ujeedada waxaa ii soo baxay number kasta oo 90 ka yar ayaa ii soo baxay. okay less than markaa ku dhufatid halkan qaybtan aa ujeedo with ayaa ku qoran. kadib hadda waxaa noo dooran light red fill with dark and red text. halkaan aa furi kartaa then halkaan aa ka bedeli kartaa. halkaan haddii border aa rabtid haddii markaasi nooca rabtid halkaan aa ka dooranaysaa ujeedayso halkaas isku bedelaya. marka hadba markaasi kii marka aad doontid ayaad ku bedelinaysaa. okay intaa waa isla aragnay less than iyo greater than waa isla aragnay. okay aan fiirino waxa ku xigo between ayaa ku xiga. between waxaa waaye laba number waxa u dhexeeya. tusaalahaan haddii aan dhaho waxaan u baahanahay keliya nambarada u dhexeeyo 70 ilaa iyo 80 ama aan dhaho 90. nambarada u dhexeeya 70 ilaa iyo 90 aan u baahanahay. saa ujeedada nambaradan waxay u dhexeeyaan 70 ilaa 90 ay u dhexeeyaan. okay marka between sidaas asagana sidaas aad u isticmaalaysaa between haddaa u baahan tahay inaad samaysid. okay equal to imo equal to waxaa halkan ku qoraysaa numberka aad rabto. tusaalahaan haddii aan rabo 71 number la eg waa kaa 71 waa kaa. marka equal to markaa dhahid nambarada leg ayaa markaas lagu dooranaa. kulli waxaana waan dooran karnaa. kadib aan ku dhaho halkan conditional formatting highlight aan dhaho kadib equal to aan dhaho then halkaas waxaa qori doonaa konton. number kasta konton la eg aa liga calaamadinaysa saa ujeedid saddexda markaasi saddexda konton ayaa saddex konton ku jirtay saddexda waa liga calaamadiyay. sidaasna waa markaasi waa u isticmaali kartaa dhaatada qayb waa dooran kartaa kulli waa isla dooran kartaa. okay text that contain qoraalka loo isticmaalaa. soo qoraalka aan doorano qoraalkan ii door then halkaan fur kadib kurufo kadib waxaad dooranaysaa text that contain. okay halkaan waxaa qoraysaa qoraalka markaa waxa adi aad rabtid. tusaalahaan haddii aan dhaho like r oo kale haddii aan doorto saa ujeedo haraf kasta oo r ka markaa erey kasta oo r ku jirto hal ii doora. soo adaa markaas og waxaad rabtid halkaan waxaa qoraysaa waxa ereyga oo dhammaystiran ama hal xaraf then saas ayuu kugu doori doonaa text that contain. qaabkaas ayaa loo isticmaalaa. okay marka conditional formatting noo fur waxaa ku jiro date taariikhda anaga date noogu jiro soo date aan ku darsanayna. okay taariikhda aan isla fiirino kulli aan doorano kadib aan ku dhufano conditional formatting then highlight cell rules kadib date aan ku dhufano. soo taariikhda markaa kusoo baxdo had tusaalaha waxaa noo doora yesterday. haddii ay markaa u baahanto inaad ogaato taariikhda shalay yesterday waa kana waa ku dhufanaysaa kadib okay leedahay waa kana yesterday shalay. okay waxaa kaloo samayn kartaa conditional formatting aa furaysaa then haddii aa u baahato like next month ama last month oo kale saa ujeedid bishii lasoo dhaafay dhan halkaan markaasi ay ku wada jiraan ama next month bishii xigto waa kaa bishii xigto sidoo kale ay ku jirtaa. today oo kale waa kaa way ku jirtaa. marka saas u dooranaysaa. marka haddii aad rabtid inaad isticmaashid date accurate haddaad rabtid inaad isticmaashid qaabkaas aa u isticmaalaysaa. okay waxaan fiirinaynaa qaybta xigto tusaalahaan qaybtan aan dooranaynaa then inta aan furno
kadib waxaan dooran doonaa qaybta ugu dambeysa oo duplicate ah. So now hadda saa ujeeda duplicate inta lasoo celiyey halkaas uu kasoo daray. haddii qayb kale aad jirto qaybta kale aad furtid unique aad dhahdid waa kan labada magac ayaa unique inta kale usmid laakiin labadaas magac unique way. marka haddii aad u baahato inaad isticmaasho duplicate unique sidaas aad u isticmaalaysaa. Okay, waxaa ku xigaa qaybtan top bottom rules. So aan doorano qaybtan tiradan aad isku dooranaynaa lina fur qaabka loo isticmaalo aad rabna. top 10 ka wuxuu ula jeedaa haddii aad tusaalahaan saddexda number oo ugu koreyso number 3 bas aa qoraysaa saa ujeedid wuxuu kusoo qabtay 3 number oo ugu koreyso. Okay, labada number oo ugu koreyso waa kaas, afarta number oo ugu koreyso hadii rabid saas ku wadaysa marka top 10 waay qaabkaas aad u isticmaalaysaa. Okay, qaybtan noo hartay oo percentage kan fiirinayna top 10 rules ku dhufo then percentage ima top 10 percentage hadaad isticmaasho hadii aad marka like numberka ugu koreeyo hadii aad dhahdid wuxuu kusoo qabanaa marka numberkaas ugu koreeyo. Okay, haddii aad rabtid like numberka ugu hooseeyo waxaa isticmaali doontaa bottom kadib asaa kugu soo qaban doona qaabkaas ayaa markaas u isticmaalaysaa labadaas qayb. Okay, qaybtan kale noo xigto oo average ka aan fiirino waxaad tegaysaa halkaa qorda above average. So average halkaan noo qoran yahay waa 99.286 waaye. So number kasta ka koreeya waxaa above average waaye then waa ka lagu dooray. below average haddii aad rabtid nambarada dhan dooro then halkaan aad tegaysaa kadib below average aad raadin doontaa. below average waa kana then you see numberka markaas average 99 noo ahaa 77 iyo 56 ayaa ka hooseeya marka below average iyo above average waa aragnay. Okay, waxaa noogu xigaa qaybtan oo data ayaa data bag noogu xigo marka midkaad doonto isticmaali kartaa kalaradan. So wuxuu ku kala cadeynaa kan soo ujeedid waa 200 waa full 101 sidaas markaas u isticmaalaysaa asagana waa datada lagu soo muujiyaa asagana datagaas. waxaa kaloo isticmaali kartaa color scale asagana noocyo badan uu leeyahay. Okay, waxaa kaloo isticmaali kartaa icons ayaad isticmaali kartaa. So markaa waad isticmaashid oo sidaan aad yeeshid hadaa u baahato inaad clean ka dhigto cellkaada waxaa isticmaali kartaa ama columnka waxaa isticmaali kartaa clear rules markaa ku dhufatid kadib waxaa leedahay laba mid oo samayn kartaa clear rules from selected keliya inta dooratay ama haddii cellka columnka ama range-ga dhan aa wax ka bedeshana toosaa markaasi waxaa u dhihi doontaa clear rule markaa ku dhufato ayaa waxaad leedahay clear rules from entire sheet. So casharkan waa intaas hadaan noo cusubtahay nagu soo biir. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.